magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa wali ka socda dhaqdhaqaaqyo ay wadaan shacabka ku nool degmadaasi kuwaasi oo si weyn uga careysan dhibaatooyin ay sheegeen in ciidanka Soomaaliland ay muddooyinkii ugu dambeeyay u geysanayeen dadka shacabka ah ee ku nool magaaladaasi. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaaladaasi ayaa sameeyay badbaxyo ay kaga soo horjeedaan ciidamada maamulka Soomaaliland iyo joogitaankooda magaalada Laascaanood iyo deegaamo kale oo ka tirsan gobolka Sool. dhawaan waxaa magaaladaasi ka dhacay rabshado u dhaxeeya dadka shacabka ah ee ku nool magaaladaasi iyo ciidanka Soomaaliland kuwaasi oo dad rayid ah ay ku nafwaayeen kuwa kalena ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen. kacdoonada gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood waxaa si weyn uga carooday madaxda ugu sareysa maamulka Soomaaliland waxaana magaalada la geeyay ciidamo aad u fara badan si ay u ilaaliyaan ammaanka guud ee magaalada. qaar ka mid ah horjoogayaasha Soomaaliland ee gobolka Sool iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan uqaal iyo waxgarad taageersan Soomaaliland. waxa ay sheegeen inaysan u dulqaadan doonin dhibaato ka dhacda halkaasi hase yeeshee waxgaradka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada Laascaanood ayaa u sheegay inaysan aqbali doonin ciidanka Soomaaliland halkaas ay ku sii sugnaadaan. warar hoose ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu go'aansaday inuu booqasho ku tago magaalada Laascaanood si uu qaybaha kala duwan ee bulshada ugala hadlo arrimaha mowqifkiisa ku aadan magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool xilli deegaamo hoos yimaada gobolkaasi ay ka holcayaan colaad iyo xiisado dagaal u dhaxeeya Puntland iyo Soomaaliland oo ciidamo fara badan halkaasi keenay. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Laascaanood buuxdhaafiyay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa Soomaaliland kuwaas oo saldhigyo ka samaystay hareeraha magaalada. waxaana qaar ka mid ah shacabka magaalada ay aaminsan yihiin isla markaana ay tilmaameen in cagajugleynta Soomaaliland ay haatan ka wado Laascaanood ay sababi karto inay dhibaato magaalada ka geysato hadiiba looga awood roonaado dagaalka ka socda deegaanka Tukareeq ee gobolka Sool.